waa sanad guurida labaad istuudiyaha waaga cusub oo ku beegan 1 Agoosto maanta oo kaleeto 2016 ayay ahayd markii u horeysay oo la aasaasay ama albaabaha loo balaqay istuudiyaha waaga cusub oo magaciisu ahaa Bardura Studio. inkastoo magac rasmi ah oo markaasi lagu daahroogay istuudiyaha waaga cusub uusan lahayn haddana magac meel gaar ah ayaa loo baxshay kaas oo ahaa Rish Rash. waxaa ka dambeeyey magaca kale ee Hilaac. Bardura Studio ayaa magacaasi dabcan ka dambeeyey markii dambe ayaa waxaa magac qurux badan uu noqday magaca la yiraahdo waaga cusub. wuxuu mudan yahay xaqdhow. haddaba waa sanad guuradii labaad istuudiyaha waaga cusub iyadoona markaasi uu noqday inuu si rasmi ah uu u shaqeynayo muddo 2 sano ah. muddadaas 2 sano ah ayaa waxa uu la kulmay istuudiyaha waaga cusub ee Bardura caqabado kala gedisan kuwaasoo saameyn ballaaran ku yeeshtay milkiilaha istuudiyaha. waa kan maamulaha istuudiyaha waaga cusub oo ka hadlaya dabcan caqabadihii uu la kulmay istuudiyaha waaga cusub muddadii 2 sano ah uu shaqeynayay. runtii markii shaqo dabcan aad abuuri rabtid ama howl aad guda gashid caqabada kala gedisan in ay kugu yimaadaan waa lama horaan. wax walbana waxay u baahan yihiin dhabar adeeg iyo dabcan sabar iyo dulqaad. dhibaatooyin fara badan oo dabcan markaasi si hawsha istuudiyaha ayaa dabcan la soo darsay oo dabcan ay ka mid tahay digniino dhinaca amniga deegaanka oo dabcan xaalad igaga timid dhinaca dadka iska caadiga ah oo iyagana runtii talooyin igaga yimaadeen in dabcan la yiri waxaad ka tirsan tahay dhinacaas ama saasaad tahay. xaaladan waa ku jirto runtii ujeeddo gaar ah ayaa istuudiyaha loo furay. runtii taasi waxay igu noqotay caqabado markaasi ama dhibaatooyin aan filaynin anigoo dabcan isku daya dhinaca ama dhibaatooyinka dhinacyada iga imaanta aan isku dayay inaan ka qanciyo arrimaha ay ka cabanayaan ayaa haddana ku guulaystay. ilaahay ayaa mahad iska leh. runtii dhowr jeer waa u go'aansaday isagana albaabaha u laabo aan isaga la iska joojiyo. haddana noloshii ayaa runtii dabcan nolosha ayaa hadba meel kaa galayso shaqana oo aska shaqo dabcan. waxaa haga wiilaysuba wuxuusan lahayn qof xaday isiga waxyaha jira wuxuu mudan yahay xaqdhow. si kastoo ay ahaataba istuudiyaha waaga cusub ee markaasi 2 sano ka soo wareegatay aasaaskiisa waxaa garab buuxa ama garab uu ka helay istuudiyahan asxaabta kale ah Liibaan Kataara iyo Cabdisaaq Gaybarow. sidoo kale milkiilaha Bardura waxa uu u mahadcelinayaa asxaab markaasi qaali isaga ku ah. waxa uu mahadcelinaa dabcan asxaabta kale ah Liibaan Kataara Cabdisaaq Gaybarow وعبدالساق عبدالله قابلو يحيى حاشي طبعا واصحاب كلا رنتي وحديك راو واصحاب قرب بوحة السي جدي لوضع الصناعة طبعا واساسها عما وجري استوديوها واقع عصب يكس Bardura. وحرجينا طبعا استوديوها وسي سعودو يضو حتى tidii la qayb kamid ah la jabsaday oo la qaatay. marka dhibaatooyinku qofka aadamaha markasta waa wax ku qoran in ay ku dhacaan qadarta ilaahayna lama gafi karo. maantana waa sanad guuradii labaad xilligii aan ildaha u furay istuudiyaha waaga cusub ee Bardura. Yaxya Xaashina waa aan dhihi karo saaxiibka qaaliga ah ila furay. Liibaan Kataara iyo Cabdisaaq Weydowna dabcan waa lama huraanka iyana laga tegi karin maadaama asxaab isku xiran ilaa haddana aan isku xirannahay. marka maantana waa 1 Agoosto 2016 ayay ahayd muddo 2 sano ah.
kastoo ay ahaataba istuudiyaha waaga cusub waxa ay dhibaatooyin ugu yimaadeen dhinacyo taageersan dowladda iyo qaybo kale waxaana barnaamijkan isku soo habeeyey oo soo farsameeyey cabdirasaaq maxamed xasan cabdirasaaq baraduro